maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee Jubbaland ayaa maanta xukun ka soo saartay kiis ay eedeysanayaal ka yihiin Weli Cabdi Yarow Dhuubow iyo Maxamed Qadar Cusmaan Cabdullaahi kuwa oo ku eedeysan la shaqaynta kooxda argagixisada. Fadhiga maxkamadda ayaa waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha maxkamadda labadiisa ku xigeen, xiriiryaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Jubbaland, baarayaasha kiiska, qareenka difaacaya ee eedeysanaha, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland Gaashaanle Sare Cabdullaahi Maxamuud Ibraahim ayaa furay fadhiga maxkamadda isagoona faahfaahin ka bixiyay gabagabada kiiska eedeysanayaasha. Alxamdulillahi rabbil aalamiin thumma salaatu wasalaamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maanta oo ay bishu tahay 23 bisha 7 2025 maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Jubbaland waxay u fariisanaysaa dhageysiga ugu dambeeyay iyo gabagabada kiiska eedeysanayaal ka yihiin eedeysanaha koobaad Weli Cabdi Yarow Dhuubow 52 jir ah, ina xaawo Sheekh Ali Maxamed ku dhashay Afmadow degan degmada Dhobley, ku eedeysan qodobada 5aad 6aad iyo 25aad ee xeerka la dagaalanka argagixisada, iyo eedeysanaha labaad oo ah isaguna sidoo kale ku eedeysan xeerka la dagaalanka argagixisada qodobadiisa aan soo xusnay, ka tirsanaa labaduba ururka khawaarijta. Maxamed Qadar Cusmaan Cabdullaahi 19 jir ah, ina Khaatima Bindiid Xasan ku dhashay degan Afmadow, ka tirsan ururka khawaarijta, ku eedeysan qodobada 5aad 6aad 7aad 8aad iyo 10aad ee xeerka la dagaalanka argagixisada. Maxkamaddu waxay soo dhageysatay eedda xafiiska xeer ilaalinta tirkalaba jeer iyo eedeysanayaasha oo labaduba qiraal u ah dambiga lagu soo eedeeyay. sidoo kale maxkamaddu waxay soo dhageysatay difaacii qareenka nimankan ku difaacayay. waxaan rabnaa maantana gabagabada haddii la yidhaahdo in aan soo dhaweeyo xafiiska xeer ilaalinta si ay u soo gabagabeeyaan kiiska. xiriiryaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland Gaashaanle Dhexe Ismaaciil Cabdi Cali ayaa dhankiisa soo afmeeray qodobada ay xafiiska xeer ilaalinta ku soo oogtay eedeysanayaasha. maanta oo ay taariikhdu tahay 23 bisha 7 2025 waxaan halkan ka soo jeedinayaa soona gabagabeynayaa kiiska labadan eedeysano horan maxkamadda aanu horkeenay, kuwaas oo kala ah Weli Cabdi Yarow Dhuubow oo 52 jir ah iyo Maxamed Qadar Cusmaan, kuwaas oo aan ku soo eedeynay weli oo aan ku soo eedeynay qodobada kala ah qodobka 5aad iyo 6aad iyo 25aad oo xeerka la dagaalanka argagixisada, kuwaas oo sheegaya ka qayb qaadasho falal argagixiso iyo oo keenay dilal iyo basaasnimo xogo loo aruuriyay argagixisada loona gudbiyay. eedeysanaha labaadna asagana waxaan ku soo eedeynay qodobada kala ah qodobka 5aad iyo 6aad iyo 7aad iyo 10aad ee xeerka la dagaalanka argagixisada. mudana gudoomiye garsooraal maxkamadda sharafta leh, markii aan soo marinay fadhiyadii hore qodobka markii aan soo marinay qodobka 110 waxay labadan eedeysane sheegeen in ay galeen faldambiyeedka lagu soo eedeeyay. fadhigii dambe aan cadaynaha soo bandhignay 114 na waxay ku sheegeen in aysan waxba ka bedelinin wixii lagu soo eedeeyay qiraalka u ahaayeen si waafaqsan qodobka 68 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. waxaan soo gabagabeynayaa maxkamadda, waxaana rabaa maxkamadda inaan sii xasuusiyo in ay labadan eedeysane qiraal u yihiin faldambiyeedkii lagu soo eedeeyay laguna soo qabtay si waafaqsan 36 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ayaga oo faldambiyeedkii ku dhex jiro. labadan eedeysanaba si waafaqsan 36 waxaa lagu soo qabtay ayaga oo faldambiyeedkii ku jiro. eedeysanaha koobaad Weli waxa uu kooxda al-shabaab la shaqaynayay muddo dhan sidoo asagu sheegay qiraalna u yahay laguna ogaaday markii dambe 14 sano muddo dhan ayuu la soo shaqaynayay, shaqooyin kala duwan ayuu la soo qabtay ilaa markii dambe dilil asagoo samaynayo
la soo qabtay wuxuuna soo sheegay inay lacago kala duwan marar kala duwan ay lacaga siiyeen lacagahana uu ka qaadan jiray si bilaa iyo si kale oo waqtiyaal kale iyo lacag uu baahday oo kale dana gaar uu ku qabsanayay ay soo siiyeen eedeysanaha labaadna maxamed khadar asagana qiraal ayuu u yahay falka lagu soo eedeeyay waxaana lagu soo qabtay asagoo faldambiyeedka iyo qaraxyadii uu dadka ku leenayay asaga oo ku guda jiro oo hawsha ku jiro ayaa la soo qabtay si waafaqsan 36 waana ninka ugu khatarka badan intuu kala soo tagay qarax uu soo galiyay jeebadiisa sida uu sheegay ka buudu soo xidhay sawaalna uu soo xirtay wuxuu ku soo qariyay qarax wuxuu ka soo qaaday degmada Afmadow gaari uu la soo raacay Caasiya wuxuuna keenay degmada Doobley si uu dadka ugu qarxiyo gaar ahaan gudoomiyaha guriga gudoomiyaha degmada Doobley wuuna ku qarxiyay laakiin nasiibana waxtada wax kuma noqonin marka waa ninka xeelada iyo khibrada soo sameeyay mudana gudoomiyaha garsoorka maxkamadda sharafta leh maxamed khadar waxa ku soo eedeeyay qodobka shanaad oo sheegayo in uu kano in la galo urur argagixiso wuuna galay tababarkoodana uu qaatay lacagana way siiyeen marar kala duwan ilaa marka dambe uu ka gaar heer oo wax qarxiyo guryaha uu qarxiyo oo balanka iyo waxa lagu qarxo uu la safro waxa ayadana ku soo eedeeyay qodobka lixaad ee kan sheegayo in kooxda argagixisada laga noqdo xubinna uu ka noqday wuuna tababarna uu qaatay shaqada wuu u fuliyay qodobka toddobaad oo asagana sheegayo in la qaado waxyaabaha wax qarxiyo waxa oo la jeedkoodu in wax lagu qarxiyo oo soo qaaday oo la soo safray asagoo sidoo sheegay uu sameeyay ficilkii rabay inuu wax ku qarxiyo waana ku qarxiyay laakiin waxdada kuma dhimanin qodobka tobnaad wuxuu sheegayaa in la qaato tababar ay bixinayaan kooxo argagixiso ah wuuna qaatay sida uu sheegay tababar bay siiyeen afmado korkeeda ku siiyeen tababarkaasna wuu qaatay shaqadii loo tababarayna wuu qabtay eedeysanaha labaad weli asagana waxaan ku eedanay qodobka shanaad oo gelida inuu ururka argagixisada golaha muddo 14 sano uu la shaqeynayay xubinna uu ka caasi waafaqsan qodobka lixaad waxa ayadana uu galay qodobka 20 sharaan ku soo eedan oo ah gelid basaasnimo yacnaha inuu basaasnimo iyo wararka dawladda inuu gudbiyo kooxdan uu gudbinayay sidoo sheegana muddo 14 sano ah ayuu jaajuus u ahaa marka dambana ay gaartay inuu dadka laayo oo 6 nin oo Kenyaan lagu dilay degmada Doobley uu ahaa ninka tusay meesha ay joogan markii la leenayna goobjoogka u dhawaa intaas waa eedi aan ku soo eedanay qiraal u yihiin si waafaqsan 68 sidaa daraadeed waxaan soo gabagabeynayaa kiiska ay labada eedeysana qiraalka u yihiin si waafaqsan 68 waxayna mudane gudoomiyaha garsoorka maxkamadda sharafta leh labadan eedeysane waxay galeen falka lagu soo eedeeyay qiraalna uu yihiin wadartan maxkamadda horteeda waxyaabihii ay sameeyeen deelka ay geysteen waa la ogyahay qaraxa ay sameeyeenna waan tusnaa maxkamadda waan horkeenay marka waa khatar bay ku yihiin marka hore naftooda ay khatar ku yihiin eelkooda ay khatar ku yihiin ummadda ay khatar ku yihiin wax saalan maaha nin intuu qarax soo qaaday la soo safray reer caweynayo ama dad degan ku dhax tuurayo xilli salaada laga soo baxay wuxuu sheegay eedeysanaha in markii salaada laga soo baxay uu sugayay salaada markii laga soo baxayna uu qaraxa xaafadda ku tuuray marka waa wax aan maskaxda oo ruuxa saxda ah maskaxdiisu ay fayowdahay dad haddii kale diini aan la firin dad Soomaaliya oo deegaankiisa oo dadka la dhashay oo garan asaga lagu dhalay aabihii lagu dhalay hooyadii lagu dhalay in intuu qaado qarax intuu la soo qaado odogtiin uu ku tuuro xaafad waa wax ka baxsan damiirka bilaadankan waana wixii kooxda ay ku tarbiyeysay tiin uu qaatay marka waa ninka khatarta xitaa asaga waxa artay in qaarkood ayagu isdilahayaan laakiin hadda dadkii ayuu rabay inuu laayo balse ilaahay baa ka badbaadiyay sidaa daraadeed maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaynaa in ay ku hesho qodobada aan ku soo eedeynay kuna xukunto xukunkaana ay ku fuliso halka eedeysanaha labaad uu muddo 14 sano ah uu degmada Doobley joogay meelo kala duwan ka soo shaqeeyay kooxdana uu la shaqeynay 14 sano asagoo marka hore nin fiican la moodahay nin fiican u ekaa dugsi quraan dhigahayay laakiin dugsi quraanka oo dadka u dhigahayay balaayo kale ayuu ku hoos waday ilaa marka dambe ay gaadho in ayaga banaanka uu uga tago oo kuwooda xitaa xuduudaha ka gudbahayo meelaha u socdo sidoo sheegay asagoo laguna ogaaday
lacagaha u sarrifi jiray si ay wadamada kale gaar ahaan Kenya ay u aadaan waxna ugu soo qarxiyaan mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sarta waxaad ogtihiin eedeysanaha inuu qiraal u yahay 60 nin shaqaalaha Dhoble lagu dilay inuu ka qayb qaatay 60 uu tusay nin markii la dilayo meesha uu taagnaa sidina lagu laayay wuxuu kaloo maxkamadda ka hor sheegay in uu kooxdan markii magaalada ay taliyaashooda imaadaan in uu u tagi jiray meeshaas warbixin la siin jiray lacagaha ay wataan intuu ka soo qaado oo kii lacag kiyaati ugu bedelo uu siin jiray sida ay meelaha kale u aadaan marka waa ninka khatarta leh hawlo intaas waxa dheer inta aan la ogeyn inta uu sheegay iyo inta hay'adaha warbixinta ay hay'adaha nabadgelyada iyo baarista ay ogaadeen weeye sidaa daraadeed maxkamadda sarafta waxaan ka codsanaynaa in ay ku hesho dhammaan qodobada aan ku soo eedeynay kuna xukunto kuna fuliso maadaama uu yahay nin khatar badan la sameeyay dadkana laayay si ummadda inta dambe uusan u leeyin loo gaaro maxkamadduna ay ku hesho kuna fuliso qodobada aan ku soo eedeynay intaasi kadib gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Cabdullaahi Maxamuud Ibraahim ayaa eedeysanayaasha weydiiyay waxay ku darayaan fadhigani maadaama fadhiyadii hore ay qirteen eedda uu soo jeediyay xafiiska xeer ilaalinta waxayna maxkamadda ka codsadeen in loo qafiifiyo xukunka maxkamadda maxaa ka codsanaysaa waliyo maxkamadda waxaan ka codsanahayaa maadaama wixii falkii aan markaa anigu dembiga aan geystay aan qilaal u ahay oonan dafirsanayn odayna aanay xanuunana aan qabo inay cafisaan ka codsanaya maadaama dembiga qoraal yahay aan inkirsanan inuu maxkamadda ifoosaan ka codsanaya dhanka kale qareenka difaacaya eedeysanayaasha aadan bahdoon Ibraahim ayaa dhankiisa maxkamadda ka sheegay in eedeysanayaasha aysan gacantooda waxba ku dilin sidaa darteed loo baahan yahay in loo fiiriyo sifaha dambiyada fududeeya in lagu doomiyo garsoorka maxkamadda sharafta leh waxaan ahay qareen ka difaacaya labada eedeysana Wali Cabdiyare iyo Maxamed Qadar si waafaqsan qodobka 5 xeerka qaab Soomaaliyeed in lagu doomiyo garsoorka maxkamadda sharafta leh markaan galo Wali Cabdiyare dhuw wali horta gacan ku dhigi lama gacantiisa xukuma geysan caafimaadkiisa waan doornay fadhiga horaan waxaan maxkamadda ka codsaday in caafimaad loo diro waxaan muuqatay in aan la qaadanin maadaama aan natiijadii la wadaagay wada gudoomiye maadaama uu gacantiisa wax ku geysanin kaliya waxa la hayay tahay asaga qirtay wax xoojinaya aan la keenin markhaati aan la keenin dadkii asaga sababta lahaa dhimashadoodii iyo cadeyntooda aan la keenin waxaan rabaa Wali Cabdiyare daruufaha ka muuqda sida qodobka 78 ee habka qaab Soomaaliyeed 8aad maadaama waxa hadda xukunka lagu dhisay uu yahay asaga qirtay oo kaliya in la qaato qodobka 78 habka la fududeynta dambiyada markaan wali halka kaga gudbo Maxamed Qadarna waa isku kiis Maxamed Qadarna wax markaatiya lama hayo wax cadeen lama hayo qiraal asaga kaliya la hayaa horaan u sheegay inuu u dhibireeyay wax walba u fududiyay waxa fiican marka qof la soo wadanayo asaga kaliya in la soo qaadanina in cadeymo lagu soo qabo qofka kas wax u sameeyaa yaa u baahan in la qabo sida haanta ay saabka ugu baahan tahay buu kiiska ugu baahan yahay in wax lagu dhiso waxaana waxaan codsanayaa maadaama falkii uu geystay aan waxba cid ku dhimatay aan jirin ee asagu sheegay burbur ka dhalanin dhaawacna ka dhalanin in loo eego qodobka 70 oo sheegayo fududeynta dambiyada أنا سؤال وديه ولي isaga qiraal ah waxyaabo waxa jira sideedaba detail ah oo qofku sideedaba uusan iska been abuuran karin wali wuxuu yiri waxaan jaajuusay ama basaasay 6 qof oo Kenyan ah oo wadanka dadka xamaasha aha dadku waa noocyadoodu kala duwan yihiin dadka masaakiin oo xamaalata ah
hadday rabaan gaalaba ha noqdaane diinta islaamku ma ogolo in la dilo. laba wuxuu sheegay inuu nimankaa basaasay in muddo basaasayay muddana uu ku daba joogay si nimankaas loo dilo. markaan weydiinay wuxuu yidhi dadka Soomaalida ah bay risqigoodii qaateen. taasina inuu caqiido xumo kale oo risqiga Ilaahay baa bixiya subxaanahu wa tacaala. waxaa intaas sii dheer wuxuu yidhi dadka Soomaalida bay risqigoodii qaateen. soo islama ictiraafsanin dadka Soomaalida ah malaayiin ka mid ah inay Kenya ku nool yihiin iyagoo muslimiin oo salaadooda tukanaya oo ka ganacsada soo sax ma caqliga caadiga wuxuu keenayay xagga iyo xagga haddii lagu wada nool yahay nabad loogu wada noolaado sida caadiga ah. wixii ciidana waa gaar ciddii wax kale aaminsaniyada u taalla. laakiin markii shacabka laga hadlayo wuxuu qirtay in dadka shacabka la laayay. dadkaasi dadka Soomaaliyeed bay marti u ahaayeen way aamineen inay ku dhex noolaadaan ka dhex maashaan bay rabeen. ma waxaad leedahay xaq bay u lahayn in la laayo? maya soo shaqada qabo qof kasto diintu doon halaha hadduu salid ku ahayn xaq buu leeyahay inuu ku noolaado. laakiin midda aan anigu ku dooday waxa weli gacantiisa wax kuma geysan weli waxa eedisu waa gacan siin ma aha say gacantiisa wax kuma geysan. waxaa sharciyan markii laga hadlayo waxaa aan kala duwanayn qofka basaasay iyo kan dilay isku xugun bay qabaan. waxaa la yidhaahdaa almubaashir waalic wariddi oo macnaheedu ay tahay ninka falka fuliyey iyo kii soo basaasay iyo kan labadaaba difaaca u sii ah labadaasu difaac u siiya oo macnaheedu ay tahay kan fulinaya buu difaacayaa. idan weli waa marka koobaade intaba isagaa qiraal u ah. intaa waxaa sii dheer ninkii dadkaba ugu khatarsanaa ee muumin dheer la dhihi jiray ee waddanka kharibay ayuu ninkani lacagaha u sarrifi jiray u fududayn jiray. muumin dheer waa naqaana dhibka ummadda u geystay intaasoo qofka muslima buu qabaa. ninka lacagaha siinaya ee u sarrifaya ee u fududaynaya ee garabka iyo gaashaanka u ahaa ayuu weli ahaa. taas iyada dembi uma aragti miya? waxaan rabaa horta in bahasha in la kala saaro siduu sharciga qabo ninka qofka gacantiisa wax ku geysta iyo qofka gacan siiya ee fududeeya boggaan uu kala sheegaya haddii hadda askarigan ninkaan dil dhaando oo isaga dil inuu diido ha uli wuu iga didi karaa hadduu dil isaga dil anu gacan baan siin marka ani doodayda waxay ku salaysan tahay ma hadda saxiibiga hore waa shaqaysanaya hadda sax waa shaqaysanaya ka hor mar walba sharciga idinkaan looga aqoon laakiin mar walba weli wuxuu ku jiraa gacan siin weli ma aha gacan ku dhiigle oo ku adkaysanaya midda. maxamed khadar afmadow meel agteeda abuu bambada ka soo qaaday bamba gacmeeda waa loo soo tababaray soo isagoo inoo sheegay nin hebel la yidhahda tababaray buu yidhi baabuur hebel baan soo raacay bambada magaalada afmadow dhexdeedaan ku aastay ama meel baan dhigtay waan ka soo qaatay haddana kabahan soo gashaday kabaha hoostooda soo gashaday macnaha hadhowna say kabay soo gelayaan ma garanaye dhoobley baan la imid dhoobley baan haddana meel dhigtay anoo gaadaya inaan dad ku dilo inaan qof ku dilaan gaadaya jaaniskii ugu sahlanaan helay waxay noqotay guddoomiyaha degmada isaga oo salaada ka soo baxay waa xilliga waxaa la yidhaahdaa ay dadku ugu badan yihiin oo dadku ay mashquulka yihiin marka salaadaha laga soo baxo iyo ama waa la soo booqan dad baa u iman ama dad baa ka sii bixi oo salaada sii aada ama jaaniskaasaan gaaday buu bambadiina hoostaan u geliyey si guddoomiyaha iyo waxaa la joogaa meesha ugu halaagsamaan xagga ilaahay badbaado ka timin mooyaane miyuu inoo teela dhigtay ninka la yidhaahdo maxamed khadar meesha dad ku laayso kuma talagelin. maxamed khadar macnaha waxaan rabaa inaan natiijada inaan ka abaarano maxamed khadar waxa uu sameeyey maxaa ka dhashay haddii aan anigu inaan ninkan dilo damco xabadda aan ku dhuftay ay dhaawacdo yaa lii qasaasaya waa maya. maxamed khadar macnaha waa falka uu sameeyey natiijada ka dhalatay khasaare kama dhalan marka maadaama aan khasaare aan ka dhalan lama dhihi karo waxbuu dilay lama dhihi. ugu dambeyn guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland gaashaanle sare Cabdullaahi Maxamuud Ibraahin ayaa gabagabada fadhiga maxkamadda ku dhawaaqay xukunka Weli Cabdi Yarow Dhuubow iyo Maxamed Qadar Cusmaan Cabdullaahi kuwa oo ku eedeysan
la shaqaynta kooxaha argagixisada. maanta oo taariikhdu ay tahay 23 bisha 7 2025 maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Jubbaland waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka 120 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xukunka eedeysanayaasha kala ah eedeysanaha koobaad shabaab wali cabdi yare dhuubow 52 jir ah ina xaawo sheekh cali maxamed ku dhashay afmadow degan dhobley ka tirsan kooxda khawaarijta al-shabaab kaasoo ku eedeysan ubasaasida al-shabaab iyo fududeynta khawaarijta dilka 6 qof oo xoogsata ahaa oo u dhashay dalka Kenya iyo sidoo kale la shaqaynta dhaqarqabe muumin dheere oo isaguna ahaa nin dilaa ah oo ummadda dhibaato badan u geystay. asbaabta maxkamaddu markay aragtay xaashida eeda xafiiska xeerlaanta ciidamada qalabka sida maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedeysanaha si waafaqsan qodobka 68 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay aragtay qodobka 5aad faqradda 3aad iyo qodobka 8aad iyo qodobka 25aad ee xeerka la dagaalanka argagixisada maxkamaddu waxay ku heshay dambiile wali cabdi yare dhuubow dhammaan faldambiyeedka lagu soo eedeeyay isaguna qiraal u ka yahay waxayna ku xukuntay maxkamaddu 20 sano oo xabsi ciidan ah. eedeysanaha labaad maxamed khadar cismaan cabdullaahi 19 jir ah ina khaatima bandiid xasan isagana maxkamaddu markay aragtay xaashida eeda maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedeysanaha maxkamaddu markay aragtay inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka badbaadiyay dhagartiisii dadka waxay maxkamaddu isagana ku heshay eedaha lagu soo eedeeyay dhammaantood isaguna qiraal uu yahay waxayna ku xukuntay 15 sano oo xabsi ciidan ah. cidii aan xukunka ku qanacsanayn waxay qaadan kartaa rafcaan inta sharcigu ogol yahay ah wabillahi tawfiiq maxkamadduna inay xiran tahay.